goobtii markii aan tagnay amaana gareynay isla markiiba waxaan ku soo aragnay falkii aan hore ugu soo aragnay digfeer oo dadkii dhibaataysnaa masaakiinta ku baabeen hubkii lamid ah qolfii lamid ah baawurkii inuu baawurkii yahay dadkii inay dadkii yihiin waxaana soo baxday baaris markii aan sameynay oo qobarada baarista oo CID-da aan si fiican dib ugu wadaagsanay labada kiis inay hal qof ay geysteen inuu hal qori lagu geystay rasaasi fooqaqadii inay hal mid yihiin sida la ogyahay xarun degmo waxay u shaqaysaa bulshada iyo dadka maamulka deegaanka qaraxaasi dadka ku dhintay waxay ahaayeen badankooda boqolkiiba 90 dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad qaxootiya masaakiina degmada laga caawinay laga siinay raashin ay reerkooda kula noqdaan dad soo qaxay deegaanadoodii abaar ka soo rartay dadkaas dad ku geeriday waxa kamid ah yani xarunta degmada dirbigeeda ku hel dugsi quraan يعني meel lagu barto diinta islaamka hadda waxay taagantaa gabagabadii maxkamaddu intii ay maanta aragtay ayaa la hor keenay sidaa darteed eedaysanayaashu dembiga ay galeen waa kalsii kala culus yihiin ninka la yidhaahda asad waa dilaa arxan daran oo aan naxariis lahayn hooyo iyo aabbe iyo carruur mid u aaba yeelay aan la arag dembiyada uu galay limit xad lagu qiyaasi kara lama arko sida uu maxkamadda horteeda ka qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta labada eedaysane oo ah in la toogto ay maxkamaddu inuu ku xukuntaan waa billaahi tawfiiq raalli kama yihi oo ma jecli dhibaatada qaraxa dhacaya laakiin qofti dhigtay ma la hayaa waayo qof Soomaaliya islaam oo saakin nabadgelyo soo kacay in gardaro lagu dilo ilaahay ma bannayn sharcigu ma bannayn anaguna raali kama noqon karno dhageysiga dood sharciyeedkii u dhaxeeyay labada dhinac oo kala ah xeedaadinta ciidamada iyo qareennada oo la xiriirtay eed dhanka ah eedaysanayaal canshuur Cismaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow intaas ayay ku dhan tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto fadhiga maxkamaddana maanta intaas ayuu ku xiran yahay